بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواء channel كان ورك ودن بي سبورتسكا محاكا عصب كلانكا عاوة ودحي بي اس جي ناديكو بدعكت توتنهام مصبا سيحيدا إلى وريين ناديكو بدعكت اي سي ميلان لليغا oo kasoo saarta go'aan dhanka ciyaaraha waa kuma go'aankaas muxuu yahay sidoo kale wax walba ugu baahan tahay xidig United ku biiray oo naadiga badacagta Barcelona qorsheeda ah waa kuma xidigaas wax walba ugu baahan tahay sida loo kala guuleystay Superkaabaha tan iyo 2015 waa kuwa kabtanada Real Madrid ee u ogolaatay inay kabtan noqdaan season ka soo socda afar ciyaar ayaa lagu dhawaaqay macallin walba iyo wax taariikh ahaan oo u haysto kusoo dhawaad channelkeena Haji Official subscribe noo saar like listen share gare oo la wadaag asxaabtaada mahadsanid soo dhawaad saaxiibayaal wararkan waxa ku bilaabi doonaa 2 maalin ama 2 days only to go Premier League start af Ingiriis laba bari ayaa ka dhiman inay dib u bilaawdaan shanta horyaal ee qaaradda Yurub waa kuma horyaalka aad u xiiseynaysid ma jira horyaal qaas ku ah horyaalka Premier League ayaa la wada arkaa kan ugu xiisaha badan iyo xamaasadda badan ee shanta horyaal qaaradda Yurub Champions League kadib Champions League tartan ka qiimo badan oo la daawado ma jiro sanad walba laakiin afartii sano marba World Cup jiro oo asiin xulka ah laakiin horyaalada qaaradda Yurub waa kay horyaalka aad u xiiseysid laba bari ayaa ka dhiman habeenka Jimcaha Sabti soo galaysana dib ayaa loo baasi doonaa insha Allah oo arki doona ciidaha ku guuleysan doonaan La Liga oo ka soo saartay go'aan ku dhawaaqista ciyaarta waxa la arki jiray in ciyaar isbuuc ka hor lagu dhawaaqi jiray garsooraha oo leelinayo kulankaas haatan waxa la dhahay waxaas ma jiraan ciyaartaas maalin ka hor ayaa lagu dhawaaqi doonaa garsooraha dhaxdhaxaadi doona labada naadi ayaa la dhahay marka La Liga go'aan noocaas ay soo saareen sidoo kale yahay in maalin ka hor lagu dhawaaqo waxay jirtay in isbuuc ka hor lagu dhawaaqo garsooraha ciyaarta hogaaminayo sidoo kale naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in heshiis mustaqbal leh ee ka dhex arkaysay xidig ka tirsan Manchester United oo hadda ay soo wareegtay Barcelona ayaa u arkaysay Benjamin Sesko heshiis u daneynaysay mustaqbalka ee rabtay inay la soo wareegto seasonka 2026 seasonka hadda bilaawro markuu dhamaado ayaa mustaqbal ahaan rabtay inay soo qaato laakiin Manchester United ayaa meel gooni ka aragtay oo xidig la soo qaato marka Manchester ka dul qaadaalay naadiga kubadda cagta Barcelona oo aad u daneynaysay in xidigaas ay la soo wareegto marka Barcelona waa bari intay ka fikiraysa maanta laga hoos bixiyay sidoo kale kulanka caawa u dhaxeeyo PSG iyo Tottenham Hotspur oo markaan meel xasaasi marayo kaliya 2 saac ka dhiman in barnaamijka xiliga aduwaayo 2 saac bis ayaa ka dhiman waa arki doona insha Allah shaxdana qaybta sharti ayaa ka daawa kartaan qof walba muuqaalkiisa soo gaaro fadlan like saar subscribe dhaho siina share gare oo gambarka furo saaxiibadaada kugu dhadhow ee jacayl sportska inay wax ka maqlaan u share gare kulankaasna waa arki doona wax ka soo kordha sidoo kale waxaa soo saaray 10 sano la soo dhaafay sidii loo kala guuleystay UEFA Super Cup Barcelona 2015 16 Real Madrid 17 Real Madrid Atletico Madrid 18 sidoo kale naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa 19 qaaday sidoo kale 2020 Bayern Munich 21 Chelsea 22 Real 23 Manchester City 24 waxa qaaday naadiga kubadda cagta Real Madrid 25 yaa waaye naadiga qaadi doonto ebed markii ugu horeysay Tottenham PSG waa markii ugu horeysay Superkaabaha Yurub ay qaadaan PSG ayaa markii ugu horeysay qaaday Champions League season kan Tottenham weligeed ma aysan qaadin laakiin caawa waxay qaadi kartaa Superkaabaha waa ogeen in Chelsea ee naadigan FIFA Club World Cup ka ciribtirtay 3 gool waxba Tottenham adina London ka dhisan tahay waa arki doonaa sida PSG ay u laqan doontid hadii naadiga ay taa powerka iyo hadii PSG iyo Chelsea ay xog badneed waa arki doonaa insha Allah waqti u dii doonaa kulanka caawa Real Madrid ayaa ku dhawaaqday afarteeda kabtan ee season ka soo socda Dani Carvajal oo wali jooga naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa hogaami doona season ka soo socda kabtanka koowaadna ah
hadduusan joogin naadiga kubadda cagta Real waxaa hogaamiye u noqon doono Valverde oo booska labaad loo dhiibay. sidoo kale kabtanka saddexaad waa Vini ayaa la leeyahay. sidoo kale halka kabtanka afaraadna Thibaut Courtois oo loo magacaabay. innaba caadi maahan. sidoo kale waxaa la soo saaray naadiyaasha ugu qiimaha badan UEFA waa ilaa iyo 30 naadiyaal la soo saaray UEFA top 30 club teams alla alaabtan. marka waa arki doonaa Real Madrid ayaa hogaaminayso, Bayern Munich, Inter Milan, Manchester City, Liverpool, PSG, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Barcelona, Roma, Benfica, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Inter Frankfurt, West Ham United, Feyenoord, AC Milan, Atalanta, Fiorentina, Zilbach, sidoo kale Club Brugge, PSV, Lazio, Lille, Real Sociedad, Porto iyo sidoo kale Sport Lisbon iyo Rangers. innaba caadi maahan. 30 naadi ee uu qiimaha sareeyo UEFA ayaa noqotay. waxaa su'aal ka taagan ma Barcelona booska sagaalaad u qalanto oo ay ka horeyso Borussia Mönchengladbach, Inter Milan, sidee wax u jiraan. sidoo kale AC waxaa loo jeedaa Chelsea oo Club World Cup qaaday, tartankaasna aad iyo aad ugu qiimaha sareyso dheeli jirtay. sidoo kale Arsenal loo jeedaa. Manchester United waayadanba Champions League ma aysan dheeline oo lagu qaadi karaa. sidoo kale Atletico Madrid finaalo leh tagtay 9 isla finaal joogto laga soo gadiyay. naadigii qaaday seasonkii la soo dhaafo cayadaro ku qaadane number 6 ayaa la geeyay oo PSG ahayd, caawna Superkaga u tartami karto. marka sidee wax u jiraan ayaa leeyahay. Porto oo ognahay in tartankaas taariikh gooni ee u leedahay, marka waa wax laga yaabo ayay noqotay. 25 sano ayaa laga joogaa Anilka markii iibisay naadiga kubadda cagta Arsenal, waxayna ku iibisay 35 milyan. ilaa haatan 25 sano laga joogaa markii iska iibisay. ilaa haatan waxaa leeyahay booska labaad wuxuu ugu jira ciyaartooyda Arsenal iska iibisay qiimaha. markii qiimihii ku iibisay booska labaad ay ugu jiraan. waxaa ka horeeya bis Chamberlain ka horeeyo oo 38 milyan ee iskaga gaday naadiga kubadda cagta Arsenal, halka Anelka 35 milyan, sidoo kale Sanchez 34 milyan, Cesc Fabregas 34 milyan, Smith Rowe xidigii Southampton aada asin 31 milyan. marka Anelka oo 25 sano ka hor la iibiyay booska labaad ku jiro. macnaha naadiga ciyaartooy ma ka baxaan miya laacibiin waa laga yaabay. sidoo kale Jack Grealish ayaa doortay inuu xirto nambarka 18aad ee naadiga kubadda cagta Everton, kaasoo hor uu soo xirtay Wayne Rooney. innaba caadi maahan. sidoo kale waxaa la isweydiinayaa yaa ku guuleysan doono 2025-2026 horyaalka kubadda cagta Premier League. innaba caadi maahan. tan iyo markii magaca Premier League loo bixiyay naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa 92-93 bilowday. waa ka saas ayaa loo kala qaaday ilaa iyo 16 17 ilaa iyo mar Liverpool awaar baxday 20 kadib 4 sano xiriir City qaaday, Liverpool ku ceshatay, haatan ayaa qaadi doona su'aasha meesha taagan. sidoo kale macallimiinta ugu darajada sareeyo iyo maanta waxay ku faani karaan markii saaxadda kubadda cagta imaato. Jose Pep Guardiola ayaa 4 Premier League xiriir ee ku faani karo. sidoo kale Ancelotti ayaa ku faani doono ku guuleysiga Champions League ninka ugu badan. sidoo kale wuxuu koobka markii la fiiriyo iyo guulahaba. sidoo kale Ferguson ayaa ku faani karo, ayaa leeyahay 13 Premier League inuu ku guuleystay. sidoo kale waxaa leeyahay Zinedine Zidane ayaa asin wuxuu ku guuleystay 3 sano xiriir UEFA Champions League. innaba caadi maahan. sidoo kale Jose Mourinho ayaa ku faani kara, ayaa leeyahay 9 sano oo unbeaten ah gurigiisa. innaba caadi maahan special one. sidoo kale Xavi Alonso ayaa asina lagu soo warmaya inuu ku faani karo 51 kulan oo unbeaten ah tartamada dhan. innaba caadi maahan. muxuu ku faani karaa macalinkaaga? Klopp, Arteta, Wenger, soo shita ya dadkii Cruyff macalin Cruyff arki jiray. sidoo kale waxaa la soo saaray naadiyaasha ugu qiimaha badan ee suuqa ku bixiyay lacagta ugu badneed seasonkan suuqa furan oo xirmi doono 18 bar kadib. sidoo kale marka waa la yaabi doontaa naadiyaal qaar oo ku jiraan
liverpool ayaa hogaaminayso, sidoo kale Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Athletic Madrid, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Sunderland kulaha. Sunderland waxay bixisay 141 milyan, inaba caadi ma. sidoo kale Burnley oo 125 milyan dhibic 6 milyan bixisay, 125.6 milyan, inaba caadi ma. waa kuwaalaya Sunderland oo hadda horyaalka imaatay, iyo Burnley iidan hadda soo dalacday, waa kuwaya wax ka qabo meeshaasay marooyin. sidoo kale Adam Wharton oo ka tirsan naadiga kubadda cagta Crystal Palace, kulankii Liverpool wax yareeyay Community ka dafay, ayaa lagu soo waramayaa markan in 100 milyan oo uu biiri karo naadiga kubadda cagta Real Madrid. Real Madrid ayaa qudareeyay la wareegay xidigan, inaba caadi maahan. waxaa leeyahay markan Real Madrid waxay u soo jeestay Adam Wharton, marka waa arki doonaa asigana aad iyo aad ay u daneynayaan dhankaas. sidoo kale wararka ayaa sheegayo dood ka dhalatay naadiyaasha ugu weeraryahanada fiican seasonka soo socda. Al Nassr oo hogaaminaya Cristiano Ronaldo, Sadio Mane iyo Joao Felix, haddii ay kusoo darsadaan Kingsley Coman meesha sheeko kale ayay noqon kartaa. waa kuwe sidoo kale Bayern Munich ayaa la arkaya iidan Olise, Harry Kane iyo Luis Diaz, inaba caadi maan. Barcelona Lamine Yamal, Rafinha iyo Marcus Rashford oo backup u yahay Roberto Lewandowski waa dhaawacay hadda maadaama Rashford saas loo soo diray. sidoo kale Manchester United oo iidan 3 weeraryahan suuq kale iibsiga ka kaansatay ayaa tartankan soo gashay, Mbeumo, Cesc iyo Konya. sidoo kale naadiga kubadda cagta Liverpool oo iidan 2 weeraryahan kaansatay, Bala Salah, waxaa leeyahay Salah, Forlan Wis iyo Eketika. waa kuwe weerarka ugu baqdinta badan ee daafacyada ka hor imaan doona seasonka soo socda, inaba caadi maan. waa arki doonaa insha Allah. malku qiime ra'yigaadana qaybta commentiga noo reeb. mahadsanid.